ku soo dhawaad Aisha waxaan aad kaaga mahadcelinaa waqtigaada qaaliga xilligan dambe wali isay tahay waa mahadsan tahay ayaan le waa ku salaamayaa aad iyo aad aan ugu mahadsan tahay waana ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo sharaf iyo anna ita waxaan rabaa Aisha horta marka ugu horeyso isbedeladii ugu dambeeyay waxyaabaha ka xasuusatid dawladii soo bedbedelo ugu dambeeyay kale waxyaabaha aad ka xasuusatid si kadib aan u helno adi ahaantaad waxa u soo joogtid wallahi waxyaalo badan hadii laga soo bilaabo ilaa dawladii Sheekh Shariif ilaa dawladii Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud ilaa dawladda maanta ee madaxweyne Farmaajo hadii aan dhinaca positive badan ayaan jecelahay inaan u badiyo hadii la dhaho dhanka amniga waxyaalo waaweyn baa iska bedelay hadii la dhaho dhanka dhismada dalka xataa gadaal hadaa ugu noqotid oo afiirisid conference roomska iyo meelihii ay ku shiri jireen madaxda hadii meesha ugu yaraa ka soo qaadano hadaa isbarbar dhigtid muuqaaladii waagaas la duubay iyo muuqaalada hadda ayaantaan helayno waxa arkaysaa inuu isbedel weyn oo xagga dib u dhismada wadanka ka socdo taas waa dhinaca dib u dhismada dhinaca amniga laftirkeeda heer waxa la gaari jiray madaxtooyada lagu garaaco hub laakiin maanta ilaahay mahadiis waxa laga yaabaa intaasoo bilood inuu in ay wax qalalaasa ama wax qaraxa uusan dhicin marka waa ilaahay mahadiis iyo dadaal juhdi la geliyay waa bogaadinayna qof walba oo juhdi ama wax dadaal geliyay in amniga iyo horumarka iyo kor u kaca dalka uu halkaas marayo wax badan isbedel mudooyinka ugu dambeeyay markaan dib u fiirino kale waxyaabo aad u far badan isbedelay wadanka aad uga warhaysaa waxaan arkaa inta badan update-kaada waana sababta aan ku soo helo waay warka waxa u malaysa markii ina wadanka tilaabo ula socotid dhawaan ra'iisul wasaarihi waa tii la casilay dhuusamareeb muqdisho xamar dhuusamareeb xamar loo wada dhaxeeyay maxaa waxyaabahaas aan ka xasuusanaynaa wallahi ayaantan waxay ugu dambeeyay oo siyaasadda dalka ka dhacay hadii aan ku xasuusiyo waxayba igu tahay aniga barnaamijkaagan oo la yiraahdo wixii maxaa u soo joogto uu la yaabadnaa wuxuu noqday wixii ugu yaabadnaa siyaasadda Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay inkastoo xan hoose iska jirtay oo maaragtay laakiin inteena badan waa iska dhagatiirayno waxa lahayn ma dhici karto ma noqon doonto laakiin in madaxweynaha Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ay halkaas ku kala harayaan dad badan may sugeenin laakiin waxaan jecelnahay inay noqon doonto wixii wadanka u wanaagsanaa oo ay noqon doonto talaabo dhinaca wanaagsan wadanka u sii wado oo noqonin talaabo burbur iyo waxaas wadanka uu horseeda hadeertan sida u joognaba alxamdulillah wixii situationki waa la contain gareeyay ra'iisul wasaare siihayaha Mr Mahdi shaqadii si fiican buu u sii wadaa hadaan ku soo noqdo midaan dhuusamareeb iyo xamar loo kala soconayo danta kalifaysa I think as much as it tahay unnecessary expense ee dawladda gelayso laakiin waxa ku jira meesha wax expense kaas unnecessary ah ka weyn taasoo ah in la baadigoobayo oo la raadinayo xalkii ugu dambeeyay wadanka xaaladan waqtigan kala guurka oo wadanka waa in loo raadiyaa xal sidoo oo maaragtay heshiis siyaasadeed lagu gaaro oo wadan aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay in niyada khayr loo sheego oo ay dadka ay ku kalsoonaadaan commissionka meel la magacaabay habeen iyo maalin gudoomiye Xaliime Yare markay hadlayso hal maalin anagu maana ka maqlin afkeeda ayadoo le ma suurta galayso marka hadiiba ay strategies ay haystaan waa at least ina ayaga uga dambeynaa oo dhageysanaa oo dhahnaa okay guidelines kana siiya sidee wax loo sameyn doonaa ayaga aad dhageysanaa ma ahan inaan qof walba uu dhahaa maaragtay ma suurta galayso anaga maanta aniga adiga waxa ognahay waxaan ogeyn ayaa laga yaabaa inay dawladda iyo commissionka oo loogu talagalay doorashada inay og yihiin marka waa ayaga inaa uga dambeynaa siday aniga ila tahayna waxa ila quman 4.5 iyo 51 ergo iyo waxaas dhan waa soo aragnay waxa fiican hadeertaan midaan la sheegayo oo aan wali soo arkin ina at least aan maaragtay ku taageerno inta taageeri karno marba ayakii haday leeyihiin way dhici kartaa dadka qaar ayaa waxay leeyihiin waqti kororsiya la suubinaya few months oo technical time oo lagu daray aniga shakhsiyan ma aaminsani inay damage wadanka gaarsiinayso ama qof kale inay gaarsiinayso marka waxaan jeclaan lahaa xataa aniga shakhsiyan sida aaminsanahay dad badan oo Soomaaliyeedna ay aaminsan yihiin waxa qurux badan in at least doorashadii codii qofkii la yaqaanay xataa hadayna ahayn
mid la facilitate gareeyo oo cod iyo qof u dhigmata dadka qaar waxay ku dhaleeceynayaan cod iyo qof ma ahan 4.5 systemkii meesha ku jiro because magaalooyinkii iyo tuulooyinkii reerihii deganaa ayaa kuraasta loo geenaya aniga waxaan aaminsanahay taas inay ka fiican tahay in odayaal konton iyo kow ama whatever number ay yihiin intay imaadaan ay ganacsi ka dhigtaan masiirkii ummadda ay dhahaan adiga meeqaa bixinaysaa oo qofkii lacag bata uu kursiga kusoo baxo waxaa ka fiican oo integrity ahaan xataa siyaasiyiinta soomaaliya kor u qaadi doonta markii intaasoo 10 milyan oo soomaali ama xataa 1 milyan oo dad ummadda soomaaliyeed hadday vote gareyso ama ay doorasho gasho waxay ka qurux badnaanaysaa natiijada kasoo baxda midii kasoo bixi jirtay 4.5ka ama ergada iyo wixii la midka marka ummadda soomaaliyeed waxaa ugu baaqayaa in at least ay taageeraan oo ay isku dayaan inay ma aragtay at least ugu yaraan inay isku dayaan inay bal dhageystaan waxay noo sheegayso gudoomiye Xaliime Yari Soomaalida waxaa la horta waa geeleydan waxaa la yiraahdaa dadka ugu madax adag waa qaab ahaan markii loo fiiriyo meel walba aan joognan horta waa kuna xitaa haddii qofka jaanis la siin lahaa oo la dhihi lahaa war dadkan hala sii jaanis ugu yaraan xataa soo arkaan meesha ugu dambeysay oo laakiin qof walba wuxuu leeyahay waa saad ka dhawaajiso waa waqti kororsigaas laga wadaa oo waxa dareemaysa in lagu kalsooneen xataa waxyaabihii waana qaab qabiil ku dhisan systemkan dimuqraadiyadda oo dimuqraadiyadana waa un wax qaldan maahan waa la tashto waay waxaan u maleysay marka wadamadan inta badan oo westernka kale aad in ugu hormareen oo qofku ku xisaabtama codkiisa ah marka qofka Soomaaliga muu fahmin ani aaminsana qaab ahaanteeda ani shaqaantay markaan ka fiiriyo codkayga ah shaqeynaa okay xukuumadda muddo badan soo jirtay dawladda waqti badan soo jireen waxaana arkay saddexda madaxweyne ama afarta madaxweyne ugu dambeysay marka aragtay wixii ka dambeeyay Cabdiqaasin oo kaleeto ama Cabdiqaasin xiligiisa laga soo bilaabo madaxweyne walba inuu luqad ku sii dhufanay markii daqiiqadaha ugu dambeysay ra'iisul wasaare ma aqaan waxay noqon doontaa siyaasad ahaanta dhan kale waxaan rabaa inaan fiirino horumar badan oo la taaban karaa kamid ah sharci maxaa la yiraahdaa arintii badda oo kaleeto waxyaabo badan laga gaaray oo wali sii socoto dawladda waxay sameysay dhanka deemaha kaleeto waxyaabo badan laga sameeyay positive badan jiro waan inta badan positive kan ku arkay wallkaada Facebook oo kaleeto hal mar waxaan ku xireynaa wadamada kaleeto arintii ilhaan aad ula socotay doorashada markii hadda ugu dambeysay doorashada aad iyo aad arintaas ka warayada maxaa nooga sheegi kartaa horta arinta ilhaan Cumar aniga laba dhinac u kala qaaday dadka Soomaaliyeedna waxa jeclaan lahaa inay sidaas ay u fahmaan inkastoo aan dadka Soomaaliyeed ogahay inay iga wada ma aragtay caaqilsan yihiin oo iga aqli badan yihiin inta ugu badan oo ayakaba ay ma aragtay dareemi karaan wax kala saari karaan laakiin dad khaas waxa jira waxyaalo badan iskaga qaldan yihiin oo aan jeclaan lahaa inaa ugu kala qaado laba meel ilhaan Cumar shakhsiyan ahaanteeda personal choice-keeda ee samaysato ayadu private u yahay aniga iyo adiga iyo qof kaleeto oo meel fadhiyo ma khuseeyo in uu offend gareeyana ma ahan ama uu si xun dareensiiyo ama in ma aragtay aan ku leenahay ra'yi ka dhiibasho midaas waa mid oo ayadaa u madax bannaan arrimaheeda shakhsiga ah sida u maamulanaysay markay u imaato marka ilhaan Cumarta politics in the political ilhaan Cumar ama siyaasiga ilhaan Cumar ah waa gabar Soomaaliyeed oo siyaasadda wadanka adduunka ugu awooda badan meel weyn ka gaartay that itself taas laftirkeeda ayaa sharaf iyo karaamo ugu filan dadka Soomaaliyeed marka waxay ila tahay haddii jirto lacalla haddii jirto arrimo ama pointyaal ay ku qaadacsan yihiin ama ku khilaafsan yihiin ama ay ma aragtay siday jeclaayeen maahan si kale u maamushay waxa fiican in shalay ayaga soo doorteen intay raadiyaan ama xafiiskeeda ugu tagaan ama ay balansadaan ma aragtay some sort of a meeting community meeting ay sameeyaan ay address gareeyaan ee dhahaan ABCD annaka maanan kaa sugeenin isla xisaabtanka la sheegayay waa moogtahay taas oo la dhaho meesha waxaa ku geysanay because of ABCD adiguna maada subin mase qaar baa subisay waa ka gaabisay isla xisaabtan baa intaas lagu dhameyn karaa laakiin arinta foosha xun oo ma aragtay qof Soomaaliyeed oo damiir leh uunan sameyn karin waxa waaye gabar Soomaaliyeed oo magac iyo maamuus leh oo meel weyn ka gaartay siyaasadda dalka Mareykanka in arrimo khaas ah oo iyada khuseeya ama ha noqoto ma aragtay waxyaalaheeda private-ka ah ama siday u maamushay siyaasadeeda in la dhaho waa is hortaageynaayo sabotage ku suubineenaayo
qof aana soomaali ahayn baa usoo raacaynaayo waxaa doonaynaaba kursiga inaan ka qaadno way ila foolxun tahay aniga waxayna ila tahay maaragtay maangaabnimo ma isdhihi kartaa Caaisha in wixii ka jira wadankii marka wadamada kale Soomaalida marka imaano kaleetana ay welina sii daba socoto camal wallaahi waa u badinayaa because waxaa la dhahaa soomaalida hadday meel kasta tagaan waa ninkii soomaaliyeed ama gabadhii soomaaliyeed hadday meel kasta tagto waa gabar soomaaliyeed iyo waa nin soomaaliyeed marka dabcan haa aada u weyn waxaan rabaa dib inaan ugu soo noqono dalka saa hadda la socotidna xilligii xukuumadda iyo waxeeda oo dhammaan rabtaa oo waqti yara nooga dhiman wax ma kuu muuqdaan saansaan wax qurux badan ama waxay ahaato wax ma kuu muuqdaan wallaahi waxbaa ii muuqda wax qurux badan oo weliba weyn baa ii muuqda insha allah ilaahayna ha ka yeelay waxaa ii muuqda in legacy maaragtay uu madaxweyne farmaajo uu samayn doono oo maaragtay taariikh cusub dhici doonto oo dadka soomaaliyeed loo celin lahaa xaqoodii codkooda maaragtay ku wax ku maamulan lahaayeen oo qofkay rabaan ay ku keensan lahaayeen kursiga oo maaragtay awoodoodii dastuuriga ahayd oo 50 sano iyo xoogaa ka maqan in loo soo celin doono taas inay u horseedi doonto maaragtay caqabado waaweyn oo siyaasadda Soomaaliya hor yaalla qof maaragtay markii damaanad qof kale ka soo qaato mase markuu qof deyn soo galo uu deyntii u ordaayo waxyaalo badan uusan xeerin doonin laakiin qofka markuu nadiif yahay oo kaliya danta dalkaas inuu u adeego uu meesha u yimid oo pressure qof kaleeto damaanad qaaday iyo wadan kaleeto wata iyo qof uu lacag ka soo deynsaday uusan daba taagnayn waxaa jeclahay si fiyow oo nadiif ah oo wadaniyad leh inuu dalka ugu shaqayn doono marka waxaa aaminsanahay insha allah ilaahay hadduuna la garab galo in isbedel weyn uu ka dhici doono dalkeeni insha allah xagga siyaasadda iyo xataa haddii la isku firi xagga amniga maaragtay xagga awoodda dowladnimo waxaan jeclahay ilaahay inuu nagu sibo laakiin waxaa ii muuqda waxyaalo qurux badan oo in tafaha la haysto siyaasadda intaan ka baxno aan noqono maaragtay soomaaliyadii la yaqaanay wadadeedii inaan jeexano aad waa kugu raacsana haatan waxaa ku nooshahay kenyana waxaa waaye waa meesha keli iyo siyaasiyiintaba kasoo bilaabmaan waagii hore intuu hadda koronadan wax kala celin meelahay ka bilaabi jireen ololahooda kambeenada oo kaleeto iyo meelahay ku kulmi jireen wax ma ka jirin hadda magaalada waxyaabahaas wallaahi hadda sidii ayaantii waagii hore ahaan jirtay ma ahano waxaa u malaysaa siyaasaddii iyo kambeynkii inay xamar ku aruurtay oo dacladii adduunka kasoo aruuraysa maaragtay because of sidii siyaasadda u socoto oo markii hore waxaa arki jirtay siyaasiyiinta iyo meeshaan iska abaabulayo haddeertaan waa laga yaabaa hal qof iyo laba qof inay jiraan laakiin sidii markii horeeta ee ugu ahaan jirtay maaragtay bayska layska soo abaabulo ma u ahan waxyaaba badan iska bedel dhanka ganacsiga Soomaalida Kenya ku nool waa waxa la yiraahdaa East Africa marka loo fiiriyo Soomaalida ugu maxaa la yiraahdaa wax soo saarka badan dhanka ganacsiga marka loo oo warbaahinta Kenya waxaan xasuustaa maqaal hadda ka hor ay ka qoran sanadii hore taa xasuustaa ay dhahayeen saddexda qof oo Soomaaliga oo share meel ku ah waxay aaminsan yihiin hal qof inuu soo qaadi karo wax walba u baahdaan waxay ku dheeriirayaan marka Kenyaanka dhexdooda inay is aaminin markii loo fiiriyo Soomaalida markii banaanka soo aadaan waa dad dhinac ahaan ganacsiga wax fiican ka sameeya ama waxyaabo badan ka sameeya ka waran dhaqaaqa guud oo Soomaalida ay sameeyaan aniga Kenya ku dhashay weligay intaan iskuul uga soo baxay intaan kusoo leekaaday to begin with dadkii yimid ma ahayn waa runtaayo Soomaalida si fiican bay uga ganacsataa Kenya oo maaragtay awood ganacsi iyo awood siyaasadeedba way ku leeyihiin waana runo dee dadka Soomaali way is aaminaan inkastoo maaragtay mahmahdii Soomaaliyeed ahayd in is aamino inaan is aaminin baa ka fiican but still attitude-kaas waa wax nagu jira oo dadka kaleeta aan uga duwannahay inaan isku imaadno ganacsi maaragtay oo aan ganacsi weyn abuurno xirfad I think Soomaalidana ilaahay haybad ahaan u siiyey waay ganacsiga waxaa laga yaabaa dad Soomaaliyeed wadan inay tagaan ayagoon waxba haysan oo qaxootiya sanadyaal yar gudahood waxaa arkaysaa dadkiiyo maasha allah ganacsi waaweyn ka furtoo bulaalay marka waa hibe ilaahayna siiyey ganacsigaas aad iyo aad waagaan jooga xataa xasuusan 2013 ani meesha waa cabaaran jooga 3 sano iyo 2 sano camal aad u xasuusan ilaa maxaa la South Sudan oo kala ganacsi geen jireen
waxaa maxaa la yidhaahdaa siyaasadda guud ahaan aada uga warhaysa adigo intaasna waddanka banaankiisa joogto weli ma tagta gudaha ma aadi wallahi it's shocking waa ogahay laakiin weli ma tegin Soomaaliya laakiin ma ogtahay waxaa la dhahaa sometimes waxa statement waxaa jirto oo fanaankeenna qaaliga armaanta uu hees oo English uu ku jiro oo Soomaaliya ha noolaataa la dhahaa heesta English aan ku jirto laakiin inta Soomaaliya ha noolaataa Soomaalika marka waxaa ku jirtay statement uu leeyahay and I left home but home never left my heart waddankeeni waa ka soo tagay laakiin waddankeeni wadnahayga weli ma ka bixin marka weli ma tegin maalinna sidaas oo kalena weli maalinna wadnahayga kama maqnaani waddanka laakiin insha Allah aniga laftirkeyga waxaa ku jira olole iyo campaign siyaasadeed waxaa laga yaabaa kuraastaas loo ordaayo oo markii cod iyo qof hadday noqoto inaan ka qayb galo oo tago waa laga yaabaa haddii xaaladeyda ma aragtay schedule-keyga nololeed hadday saamixi weysa xataa siyaasaddaas inaan waqtigeyga uu ii saamixi waayo inaan kuraastaas la ordo aad iyo aad bay ugu qorshaysan tahay inaad tago waddanka oo ma aragtay waxaa jira dareen weyn baa ii haaya waddanka inaad tago marka waa inaan tagaa oo at least aan soo fulfill gareeyaa dareenkaas hadda waxaad degan tahay Nairobi soo ma Nairobi aad deganaa aad iyo aad waxaan dareemaa fikirka guuda ka haysi waddanka qaabka uga haysida wuxuu yahay qaab kaba dhammaystiranba qof kale u baahneen waddankan uu u baahan yahay dhalinyaro wax baratay wax badan ku soo kordhin karto ana sa aaminsanahay wayna jireen xataa hadda xasuusta dhalinyaro badan oo Kenya wax ku barato waxaan xasuustaa oo aad u aqaan xataa qaarkood wasiiro hoose intay noqdeen oo waddanka wax badan ka sameeyeen waddanka waxyaabo badan oo noqday xataa hadda xasuusta wiilkii fikirkan ubaxagee Kenya jooga wiilka dhalinyarada ahaa marka dhalinyarada Kenya waa dhalinyarada ugu active-san markii loo fiiriyo dhalinyarahan dhanka dhaqaalaha aad iyo aad ugu fiican tahay oo dhaqaaliyahan waa tahay oo ganacsiga wax badan ka sameeysan ma malaysa marka siyaasadda marka fiirisid waddanka xaaladda uu ku jiro coronada oo saameyn uu ku yeeshay dadkii oo wixii aan fahansaneen saameyn intee lagu ku sameyn karaa isleedahay guugacan siyaasadeed aad u xoog badan oo dhusmareeb muxuu ku xiray saameyn intee lagu yeelan karaa malaysa dhanka ganacsi marka fiirisid horta waxaa aaminsanahay xaaladan corona adduunkii dhan maaragtay economic wise ama dhaqaalaha adduunkii dhan uu burburiyey oo uu curyaamiyey waxaan aaminsanahay dalkeenu hadday iska tabaaleysanoo arrimaha adduun iska haystaan siduu wadamadan hormaray oo xoogaa maaragtay wax meel iskugu yaalaan oo isdifaacayeen wax sameynaya wax kala habeenayaan siduu u saameeyey waxaa aaminsanahay waddankeena si ka weyn inuu saameeyey ilaahay ha u yasiro sidaas oo ay tahay iyadoo already saameyntaas jirto haddana waxaa arkaysaa siyaasadda hadeertaan jahwareerkan siyaasadeed of course wuxuu u yeelayaa ama wuxuu u keenayaa dalka maaragtay curyaamin dhaqaale oo weyn taas ayaana waxay tahay sababta in shirkan hadda dhuusamareeb loo fadhiyo dhuusamareeb 3 in xal oo kama dambaysa oo maaragtay lagu soo gaaro sida maalin kasta aan loo soo ordin oo dhuusamareeb loo imaanin waxaan aaminsanahay expense-ka uu madaxweynaha isticmaalayo from xamar ilaa dhuusamareeb diyaaradaha and everything haddii maanta xal laga gaaro aana loo baahanin shir afraad in dhuusamareeb loogu yimaado iyo markii oo la dhaho shirkii saddexaad waxaa haddana lagu daray ajendayaal kale oo dib baa la iskugu soo noqonaya markasta waxay noqonaysaa soo noqodka dambeetaa wuxuu keenayaa curyaamin dhaqaale oo hor leh marka waddanka intii curyaamin dhaqaale gaari lahayd way gaartay waxaa jeclaan lahaa madaxdeena inay go-aan kama dambaysa oo weliba maaragtay aan la daahin ee gaaraan oo waddankiina sidii road mapkii lagu wadi lahaa maaragtay noo jeexaan waxaa sidaas oo kaleeto curyaamin dhaqaale keenaysa dadka oo maaragtay aan shaatayn ah ama ay baqdin ku jirto maxaa dhici doona talo ma la islayn doonaa ma la heshiin doonaa dadkii ganacsiga ama dhaqaalaha banaanka alaabta ka keenayay waxaa laga yaabaa inay alaabtii keenin oo ay joojiyaan ma ogtahay and then waxay marka xaaladda guud ee dhaqaale oo waddanka already hadeertaa waxaa ka jira tension ama already maaragtay curyaamin oo saameyn oo xajmigeeda leh ayay gaarsiisan tahay marka waxaan haddii maanta intii xal laga gaaro oo la dhaho doorashaa loo dareeraya ama waxbaa la isku garto waxaa la sameeyey maaragtay middle grounds wax la yiraahdo baa la iskugu imaanaya
at least waxaan aaminsanahay ninkii dibadda alaabta keeni lahaa oo waddanka keeni lahaa maaragtay wuu ka baxayaa tensionkii saarnaayo waxbaa kala furfurmanahay laakiin de mo oo saas siyaasadda maaragtay ay u cakiran tahay dhaqaalihiina sidaas lamida uu cakiran yahay aad iyo aad weliba saameyntan guud ay sii jirto waddanka waxaa la sheegaa uubiyahaba boqolkiiba 70 dhalinyaro waa la yiri shaqo la'aan ka jirto waddan system aan ka jirin waa la dareemi karaa inta gaarsiisan yahay shaqo la'aan jirto dadkii systemka saxda oo ma haystaan maxaa leedahay waxyaabaha asaasiga xataa qaarkood lama wada heli karo sida dadka looma wada heli karo qof walba wuxuu ku nool yahay heerkiisa ku nool yahay doorka dumarka marka loo fiiriyo haweenka kaleetana waa doorka ugu xoog badan dagaaladan waddanka intuu ka socday ay ka qaateen kaalinta ugu badan siyaasaddan hadda xoogay ku soo yeesheen oo mudooyinka ugu dambeeyay haweenka waxaa waaye waa lagu martigelinaya waa lagu soo dhaweynaya waxaa jirta wasiirada waxbarashada ahayd oo xoog intay saartay qof walba iskuul ka aada fikirkaas keentay fikirkii inta badan uu shaqeyn waayo dowladda awood badan uma sahlin haddii dhacdo in siyaasadda aadid maxaa u malayn kartaa xoogga maxaa saari lahayd dhankee xoogga fiirin lahayd wallaahi aniga maanta haddii meeshaan ku haminayo ama waxaan ku haminayo waxa waaye waxaan jeclaystay inaan maaragtay xildhibaannimo u ordo magaalada gaalkacyo hadday ii suurta gasho taas xildhibaannimada waxaa u doortay ma ogtahay waa meeshii shuruucda laga suubinayay waxaana aaminsanahay ama istusay maaragtay waddankeena waxyaalaha ugu badan ama dhibta ugu waaweyn oo maaragtay nahaysta waxay laayihiin shuruucdii xakameyn lahayd marka waxaa aaminsanahay haddii la heli lahaa shuruucdii xakameyn lahayd in ay maaragtay waddanka sidaan ka wanaagsanaan lahaa marka lacalla haddayba ii hirgeli lahayd oo aan ka mid noqon lahaa golaha waxyaalaha aan ilaa maanta caawa haddii la weydiiyo aan dhihi lahaa waxaa ka mid ah in shuruuc loo raadiyo sida loo xakameyn lahaa qabyaaladda kow markii la yidhaahdo qabyaalo hadda kenya kale haddaan kuu soo maro 2007kii markay islaayeen waxay sameeyeen kabacdi markii laga soo noqday dagaalkii iyo dhibtii waxay sameeyeen wax la yidhaahdo hate speech qofkii maaragtay soo istaaga meel oo TV ama shir soo istaaga oo yiraahda reer hebel ayaga badanaa maba isticmaalaan waxay isticmaalaan regions Mount Kenya waxay isticmaalaan maaragtay regions ay isticmaalaan way naga fiican yihiin at least qabiilka ma carabaabaan waxaa la dhahay qofkii meel intuu soo istaaga kicin dadweyne ku hadla xabsigaa loo taxaabaya ma garat marka hadda waddankeena wuxuu u baahan yahay waxyaalo aan kuu sheegi doono oo maybe dad qaarkood inay ka dareemaan waxaa laga yaabaa inay uncomfortable ku noqdaan laakiin waa sida aniga dareensanahay ma ogtahay ayaan dhaweyto beel sharaf loo beelaha Soomaaliyeed ka mid ah ayaa xamar ku shiraysay hadallo ka soo baxayeen dad madaxweynayaal ka ahaa Soomaaliya kursiga madaxtinimada Soomaaliya soo fadhiistay ayaa aad iyo aad yacni ii naxdin geliyay markaa fiiriyo waxyaalahaas oo kale wuxuu u baahan yahay horta qabyaaladda in maaragtay shuruuc laga soo saaro oo waxaan dhihi lahaa in sharci la soo saaro oo qofkii intuu meel soo istaago yiraahda annakoo reer hebel xataa ma ogtahay annakoo reer hebel sometimes ayadoo positive la dhihi karaa kicin ama nacayb ama hanjabaad ama qoryaha haysanaa iyo qorigaygii cadaaya yaala iyo maaragtay waxyaalahaas oo kaleeto qofkaas in wax allaale iyo waxa maaragtay uu mansab siyaasadeed dalka ka hay intii laga qaado oo weliba xabsi oo la xiro oo weliba maaragtay laga qaado weligiis dambeeto inuuna siyaasadda dalka uuna ka qayb gelin midda kaleetana waxaa in la suubiyaa maaragtay shacabka Soomaaliyeed in la dareensiiyaa milkiilayaasha ugu waaweyn oo dalkan inay ayaga yihiin rikaato in lagu haysta maaragtay oo maanteeto odayaal dhowr odayaal siday jecel yihiin ayaga ee dalka ay dhahaan sidaas waa in dalka loo wadaa oo ayaga shakhsiyan u anfacaysa xataa maaragtay in siyaasiga laftirkiisa maaragtay awoodiisa xataa la xakameeyo waxyaalahaas oo kaleeto ayaan ku haminayaa ma garat waa aad iyo aad u qurux badantay insha Allah waan rajeynayaa inaan qayb ka noqon doono maadaama wadankii asaas ugu warhaysid oo waxyaabo badanna u soo joogtay ka mid ahayd marka hal mar soo wada aruursid shirkan dhuusamareeb 1 2 3 gan sii maray si kooban marka u qiimeysay analyze guud markaan ku fiirisay maxaa kaaga baxay wax ma ka dhax aragtay wallahi shirkan haddii aan dhuusamareeb 1 2 3 haddaan maaragtay si guud aan inta soo duuduuba aan si wax iga baxay aan ka sheego ma garad waxa waaye dawladdii dhexe inay leedahay war dalkan aan sida u dhaanno
oo maaragtay wixii dalka iyo dadka u wanaagsan aan isku raacno maamul goboleedyaashana ay leeyihiin mayay taa sheegaysid adiga waa tii annaka maaragtay awoodeenna dejin lahayd oo waxay isku haayaan oo maaragtay isku dhejinayaan sida ayaka awoodooda ay ku saafays gareyn lahayd maaragtay marka waxaa la isku haystaa war wixii dastuurka ahaa aan qaadano oo maaragtay waddanka sidii u habbooneed ama sida adduunka u shaqeeyo aan ka dhigno inuu u shaqeeyo iyo sidaan rabno ayaan doonaynaa waddanka inuu u shaqeeyo waana rajeynaya inay wax badan kasoo bixi doonaan kule ugu yaraan soomaalida ma u maleynaya dagaal saacadda inay diyaar u tahay wax yar siyaasadda iyo waxyaaba usoo joogto waa ka wada nasanaa dhanka kubadda cagta isku tihiin wallaahi kubadda cagta horta weligay ma noqon dadka oo fanska u ah oo daawada ma arag laakiin markaan high school ku jiray ayaa ciyaari jiray laakiin hadda waa gabooba mina waa u maleynaya weynaan saasna hadda uma jeedi marka guud ahaan markaan soo duubno mustaqbalka maxaa kuwa muuqanaya marka aad ka fiirisay siyaasadda aad ka damacsan tahay oo guud ahaan aad noo soo sharaxday haddii la heshiiyo arrintan gees u baxdo oo qofii cod aan la gaarin xataa ama qaabka kale la helo marka guud ahaan maxaa rajeynaysaa mustaqbalka dhow wallaahi haddii laba kala dhigaya hadday tahay hamigeyga siyaasadeed maaragtay waxaan jeclahay inaan ka miro dhaliyo oo maaragtay dalkan at least aan dhaho maaragtay markaa retire gareynayo marka 60 sano 70 sano markaa gaaro maaragtay at least aan dhaho intii dhalinyaronimada igu jirtay at least waxbaan maaragtay juhdigaygii waddankaygii saas 1 2 3 ayaan usoo qabtay inaan ku seexdo waa midda ii qorshaysan midda labaad dalkeenna waxaa haddaa fiiriyo mustaqbalka maaragtay waxa iga muuqda wallaahi mustaqbal qurxoon ayaa ka muuqda ma ogtahay adduunkan dadka qaar waxay ku leeyihiin adiga waxaas maxaa iskaga dhaadhicinaysaa adduuna dhacayo cirkaa soo dumaayo balaaya dhacaysa ma ogtahay but waxaa fiican dhanka positiveka adduunka in laga raaco marka waxaan sidaan u sawiranayo aniga waxa waaye inuu dalkeennii hagaagi doono amniyan hadeertaan mushkiladda waa iska jirtaa laakiin qofkii compare and contrast subi wuxuu dareemayaa meel weyn inaa ka nimaadnay ma ogtahay haddii dadaalkaas la sii wado waxaan aaminsanahay amniga inuu meel sare gaarayo amnigana mar haddiiba la helo dalkeennii waxa dhibta laga haysata waa amnigii haddii amnigii la helo ummadda soomaaliyeed xataa dad qaar siyaasiyiina waxay dhahaan dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin dib u heshiisiin ma u baahna dadka soomaaliyeed ayagaa minallahi ka heshiiyey xataa waxaa la dhahay dadka dhowr oday baa isdagaalay iyo shacabka soomaaliyeed isma dagaalin 90skii still markii qof soomaaliyeed uu magaalo reer hebel iyo reer hebel isku haystaan tagayaan shacabka isma leynaynin dhowr oday oo kuraasi isku haystaa isleynaya ma ogtahay marka haddii amniga dalkeena oo sidaas kusii socdo waxaan aaminsanahay insha allah hadda ayaantii dhaweeto oo markii laisku haystay arrinta badda markii kacsaneed oo dalka Kenya iyo dalka Soomaaliya nin ayaa waxaa laga wareystay TV KTN la dhahayo marka nin caaqil u ahaa oo Kenya u dhashay marka wuxuu dhahay waxaa kula talinayaa dawladeena inaysan ku talax tagin dawladda Soomaaliya because saanta hadda ka soo muuqato waxaa laga yaabaa 10 sano soo socda ama 20 sano soo socda inay Soomaaliya noqon doonto blue economy giant taasoo macnaheeda ah maaragtay in dhaqaalaha Soomaaliya uu gaari doono meel uu ku hogaamiyo Afrika iyo waxa laga yaabaa xataa bariga dhexe marka waxaa jira hididiilo wanaagsan ayaa socda dalkeennana waaba iska taqaanaayo dalkeenna hadduuba amni helo dadka Soomaaliyeed juhdigay gelinayaan bariga dhexe iyo wadamada dariska hadda Kenya kaleeto iyo wadamadan waxay ku dhismeen waa maskax iyo dhiig Soomaaliyeed ma ogtahay marka maskaxdii intii banaanka laga keeno dalkeena haddii la keeno meel weyn u gaaraya insha allahna waa la heshiinayaa sidaana ma ahaanayo dalka waxaan jeclahay oo maaragtay naawilaya ama istusinaya dalkeeniyo tagay maaragtay Soomaaliya ahayd oo 8meeyad Aisha waxaan kaaga mahadcelinaa waqtigaada quruxda badan waqtigan dambe adoo waliba shaqeynaysi inaan ku sii dhibay laakiin farxad waxa ay ugu filan fikradaas quruxda badan ka imaanay dadkana waxaan rajeynayaa inay ka wada faa'iideysan doonaan aadan kaaga mahadcelinaa Aisha waa mahadsan tahay walaalkay sidoo kale adigana